marka anagu ma taqafta ayayda iyo waxaan dhignay reerkii nicmo caadis way marka taas ay dumarku meel ay wada joogeen ilaa iyada la fuufaya way assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena caweyska caanka oo si toos uga daawanaysan Nuuriye Media barnaamijka caweyska caanka ah waxa marti ku ah Abwaan Dirs ninka caanaha baraha TikTok abwaan ku soo dhawaada Nuuriye Media iyo barnaamijka caweyska caanka waan ku dhawaay saaxiib Nuuriye Media aad baad maastaa way abwaan caawa barnaamij dhowr su'aalood aanu ka weydiin doono insha Allah marka su'aasha koobaad waxa ku dhacaysaa وسؤالو dadka baraha Facebook TikTok YouTube isticmaalaan jeclaayeen idoo weydiisay way su'aasha koobaad waxa ku dhacaysaa Abwaan Dirs waa kuma horto Abwaan Dirs saaxiib waa ninka horta media iskaga jira mida dhalinyarada alabuurka magaalada Togdheer dadka media isticmaalo weey kamid yahay qof walba ka iska aragna ninka weey way waad aragtaan waxaan jeclahay inaad si fiican aad u barateen way su'aasha labaad waxa ku dhacaysaa Abwaan Dirs magaciisa saddexan magacayga saddexan waa Abshir Farxiis loo garan og yahay Abwaan Dirs way naanaysan Abwaan Dirs sidee kugu baxday saaxiib say ugu baxday ma jirto laakiin aan la faxay way dadka markii aad adigu la baxday dadka ugu horeeyay kugu yeedha maxaad kaga falcelisay maxaad soo dirantay markii magacaas uu ku socday wallahi saaxiib waxba kama falcelintay waa magacaan la baxay oo dadkii inay barteen on la noqday maogta heerkeygii hore bay leelaaway inta asxaabtii hore ay garanayso mooyee halkaas way marka hadda laba asxaab dadka u qaybsan mid magacii caadi ah eegasti hore dee iyo kuwan dambe niyuga way su'aasheena kale Abwaan Dirs adiga iyo dumarka maxaa isku haysaa dumarka iyo anigu mise adigu aniga dumarka horta ismahayn dee muuqaalo kaftan ba ka sameyn jiray iminkana qaarna soo socdaan marka hawsheedu waa iska socotaa dee wada maxaa la dhihi karaa isku qabteen Abwaan Dirs iyo dumarku wallahi horta ismahayaan horta kowdha dumarka inaan madaxa la isu kaygin dad badan oo igu yaabaan arkay dumarka maxaa laga siiyaan marka dumarka ismahayna adigu waxoogaa kaftanka naga dhaxeeyay umbad ku jirta garanaysaa hawlahooda ama ka hadli jiray tina imika si dhamaanaysa wax kale oo soo socda way su'aasha kale ragga iyaga maxaad u jafo weyday ragga maxaad u jafo weyday warag badan oo taa jafo jiraan oo mawduucan rag ka sameeyay bal mid kamid ah ragga qaar aan ka sameeyay way jirtaa waxa kamid ah nimanka way kala noqday waxa kamid ah ninka dumarka oranaya magaranaysaa lacag soo si dumarku adarki jirtay dumar rag lacag ka qaad weydiinaysa in oran gaari baa meel iga jabay taxi baa meel yaala walaalay $10 ma ka heliya maanta $30 ku ka qaaday wuu jiraa kaas mawduucyadan xoogay waa ka sameeyay dee wuu jiraa su'aashan kale aad u dharin yahay caqabad ma kala kulantay badiba dumarkan aad jiftaado ma wallahi caqabad saas kale wasida ta kale dhalinta hadda aad ka social-ka ugu soo badanaysa iyagu isu shukaansana maxaad kula talinayd dhalinyarada social media maadaama adigu aad hadda uga hadasho dhanka social-ka maxaad kula talinayd way isu shukaansada horta dad badan baa isu shukaansada qaar waa qaar isku cusub imika isbartay qaarna waa qaar kan sanadaha wadade kuwan sanadaha wada waxaan leeyahay jaamacad ma dhiganaysaan pointiga muhiimka ka wada hadal kuwa isku cusubna waxaan leeyahay sax baasha halka ka sii wado si bart dee labadaas sano kala qaaday waa si wanaagsan si fiican baan filayaa inay ku maqlayaan su'aasha kale dadku jeclaayeen inay ku weydiiyaan anagu caawa chance ku helno waxa weeye koolka lagu raago maxaad ka tirisan koolka la isku raago waa bilaa macaan afarta muhiimka la isku sheegaan leh afarta muhiimka la isku sheego kool lagu raagay 20 saac la wada hadlay wax soo kordhinaysa ma jirtid point muhiim in laga wada hadlo way saasan dadka qaar waxay isweydiinayaan abwaanku maadaama hadda aad u dhaliilo dumarka waxyaabo social-ka dhanka WhatsApp-ka iyo koolka caadiga ah jiraan waa qaar ku soo dhacay abwaanka qasooyinkaas maxaa ka jira arintaas oo isaga la kulmay labada way jiraan qaar la kulmay qaar ila kulmina dad ka turjumaya way jiraan ka waran dadka iyaga maxaad kula talinayn hadda iyagu waqtigaaga ku jira hadda maadaama adiga waxaan idin kugu soo dhacday koolashan aad ku soo raagtay
dee waxaan leenahay waxaan naga soo aragnay dhowr jeer waanu nagala hadlay iska hagaajiyo ka gudbo dee wax hore uga sii socdo si wanaagsan saasaan leh way su'aasha kale koolkii ugu badnaa intee baad ku jirtay koolkii ugu badnaa wallahi dhowr saaxiib ku jira